si fiican baan uga hawlgalay kayskiina waan soo xaqiijinay way jiraan runtii warar sidii ay cadaaladdu ahayd ama runtu ahayd la garan maray oo aad loo buunbuuniyey laakiin kayskani waa kays dhacay oo dee maad aragtay iminka aanu soo xaqiijinay markaa walaalayaal halka waxaan ka caddaynaynaa maanta in wasaaradda caafimaadka runtii ay mas-uul ka tahay ummadda somalilan ay caafimaadka mas-uul ka tahay meelaha farmasiga cliniga hasbitaalada inaanu tagno oonu hubinayn laysan ka yagaan haystaan ka NHBC-gana haystaan qoladaan labadan midna haysanin ma operate karayn karto laamaha amniga ayaanu la kaashanaynaa albaabadana aanu ka xidhaynaa dhammaan xarumaha caafimaadka ee aan haysan permitka ay wasaaraddu bixiso iyo laysanka NHBC bixiso inay muddo 3 maalmood gudahooda ay ku soo qaataan gaar ahaan ay wasaaradda ku yimaadeen dhammaan in hay'adaha qofkii dambiilaha waxaanu isagana u gudbinay hay'adaha ay qusayso si waajibaadkooda ay uga gutaan 3 maanta taariikhdu tahay bishii 7 12keedii shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay runtii case maalmahanba social media ku jiray oo la isdhex marinayay case-kaas oo ka dhacay magaalada Hargeysa xaafad kamid ah runtii case-ka markaanu maqalay wasaaradda caafimaadku sida ay nool maalmeedkeeda ka mid ka ahayd way ka hawlgashay guddi gaar ayaan u saaray oo runtii soo baadha case-ka waxaan ogaanay inuu jiro oo xarumaha caafimaadka meel ka mid ah oo ku taalla xaafadda Hargeysa uu case-kaas ka dhacay horta waxaan u taxsideynayaa inaan ka dhintay 26 jirka ah Ilaahay u naxariisto familigiina samiriyan Allah ka siiyo markaa ka wasaaradaha runtii si fiican baan uga hawlgalay kayskiina waan soo xaqiijinay way jiraan runtii warar sidii ay cadaaladdu ahayd ama runtu ahayd la garan maray oo aad loo buunbuuniyey laakiin kayskani waa kays dhacay oo dee maad aragtay iminka aanu soo xaqiijinay markaa walaalayaal halka waxaan ka caddaynaynaa maanta in wasaaradda caafimaadka runtii ay mas-uul ka tahay ummadda somalilan ay caafimaadka mas-uul ka tahay saqiir iyo kabiirba marka anagu taa ka duulayna agaasimuuna aad ugu dheeraaday arrinkaa waxaanu ka soo saaray go'aamo dhowr qodob ah kiiskaas si aanu dib ugu dhicin kow horta xaruntii caafimaadka ee maad aragtay service-ka bixinaysay waanu xidhnay oo maanta waa xidhan tahay laba dhammaan in hay'adaha qofkii dambiilaha waxaanu isagana u gudbinay hay'adaha ay qusayso si waajibaadkooda ay uga gutaan 3 dhammaan xarumaha caafimaadka ee aan haysan permitka ay wasaaraddu bixiso iyo laysanka NHBC bixiso inay muddo 3 maalmood gudahooda ay ku soo qaataan gaar ahaan ay wasaaradda ku yimaadeen wasaaraddu way furan tahay qaybta laysanka bixisa permitka xarumaha caafimaadka ee haysan muddo inta leeg hadii ku iman waayaan waxa laga qaadi doonaa shaqo waafaqsan muxuu sharciga aan ku celiyataa dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ee aan haysanin permitka ay wasaaraddu bixiso waa inay muddo 3 maalmood gudahood ku soo doontaan qofkii taa ku fail garooba ee ku iman waaya runtii wasaaraddu iyadoo la kaashanaysa laamaha amniga waxay ka qaadaysaa arrimo waajib ka qaadaysaa degdega 4 qodobka ugu dambeeya dhammaan waxaan ka codsanaynaa ummadda Somaliland kiisaskani way nagu badan yihiin magaalada Hargeysa iyo dhammaan Somaliland waxa ka furan xarumo caafimaad oo aad far badan baa ka furan oo bilaa laysana bilaa sharciya dad ka shaqeeyana in qualification haysanin inayna qualify qaarkood ahayn dadku way isku dhex jiraan ma wada oran karo bareeb sadkris ma haystaan laysan ma haystaan oo ma haystaan muxuu qualification caafimaadna ma haystaan way haystaan meelaha qaarkood oo qualify u yihiin laakiin waxa jira meelo badan oo xaafadaha ku yaala oo farmasiyada oo badan clinic ku jiro inayna dad ka shaqeeyaan ahayn dad qualify xarumuhuna ayna haysan permitkii loogu talagalay marka shacabweynahan waxaan ku codsanaynaa insha Allah in facility-yada noocaasa ama dadka ka ganacsanaya xaafadaha ee farmasiyada ka furta ama clinic ka furta ee laga shakiyo permitka iyo laysanka dawladdu bixiso aan haysan inay noo soo report gareeyaan si gacmo wadajir bay wax u qabtaan haddii aan ka hawlgallo oo shacabkeena uga badbaadino dadka dawooyinka fayga ama dawooyinka dhoos ku badan yahay ama dadkan irbadaha lagu durayo ciyaalka iyo dhalinyarada aan train haysan aan qualify ahayn ee aynu uga qaban ummadda Soomaaliland marka annagu wasaaradda man dadaalayna runtii baaritaan badan baan sameynay qayb dhan baan u sameynay in laga hawlgalo
dhowr loo garaaco meelaha ay ka furan yihiin xarumaha caafimaadku dhammaan la tiro koobo sida agaasimuhu sheegay waa 800 iyo dhowr iyo 60 baa furan intaba waa loo tegey requirement-igi waa loo dhiibay muddadaana waanu qabanaynaa ciddii ka soo bixi weyda runtii tallaabo sharciga laga qaadayaa meeshana waa laga xidhayaa insha allah waxaan kaga baxayaa mar labaad waxaanu idinka codsanaynaa in meelaha laga shakiyo ama habeenkii lagu iibiyo leydka furan ee caafimaadka sida farmasiyada in loo soo report gareeyo insha allah waxaan kaga baxayaa kolley kayskan meel fiican buu marayaa si loogu talagalay waan uga shaqaynay salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wixii su'aal qabo waad weydiin kartaa mudane wasiir goob xaruna oo sidaa u awood badan oo adeega caafimaad intaa leeg bixinaysay sidee baa idinku ogaan weydeen inay liisan leedahay iyo inaysan lahayn maadaama idinku mas-uuliyadda caafimaadka somaliland aad haysan waa su-aal fiican weeye horta waan soo ogaanay dowladdan iminka wadashiri waxqabad muddo 6 bilood ama 7 bilood kulli bay jirtaa tawan ka hawlgallay oo waa kan iminka agaasimuhu ku cadeeyay xarumaha waan soo tiro koobnay tanna waxay ku jirtaa xarumihii la soo tiro koobay ee la soo arkay waana loo diray inay hawsha soo qabtaan laysanka ay qaataan marka waan ogeyn waana la soo waxayna ku jirtay xarumaha la soo kormeeray bay ku jirtay waa maasantay mudane wasiir waxaad sheegtay muwaadinkaasi inuu laamaha ammaanka u gudbin doontaan bulshadu ma horkeeni doonaa dambiilaha taas waxa u taallaa hay-adaha amniga iyo xeeralanta u taallaa laakiin annagu shaqada iyada waa inaan gudbino waanaan gudbinay imika insha allah waanu ku cadaadin doonaa dee iyagaa shaqada iska leh laakiin annaguna follow up aan ku sameynaynaa si cadaaladda loo horkeeno hadda xarunta caafimaad maad caddaynin xaafadday ku taalla maad caddaynin ma laga yaabaa in dadku weli ay doonayaan inay ogaadaan xarunta caafimaad ee waxyeelada intaa la geysay xarunta caafimaadku xaafadaha hargeysa degmo ka mid a ku taallaa galbeedka ku taallaa waanan ka hawlgallay wayna xidhan tahay ilaa requirementiga ay buuxiso kayskaasna dhinac u dhaco lama furayo haddiiba ay dhacdo inay dadku sii ogaadaan ay doonayaan in magaca xarunta ay ogaadaan oo si aan mar dambe aanay ugu luuqoyn xataa haddii kiiskooda la xalliyo miyaan ahayna dadka u sheegtaan magacu waxaa keenayo in la sheego waxaa muhiim ah in xaruntaasi ayna furaanin iyada oo bilaalaysana bilaa sharciya annaga waajibaadkayga waa kaa si aanu shacabka somaliland safetygooda uga shaqayno waajibaadkana saaran waxa weeye xarun caafimaad inayna furaanayn iyada oo bilaalaysana madana wasi waxaa doonaya kale inaan ku weydiiyo waxaa jira sidaad ka warhaysa ama in badan aad ku aragtay social media qaybaha kala duwan ee baraha bulshada waxay dadku aada u hadal hayaan dhakhaatiirtu qur-aanka ay qoraan ee ku saabsan dawooyinka oo kale iyada taa maxay idiga qorshaysa maxaad uga jirta qoraalka qoraan tusaale ahaan dawooyinka marka la qorayo farta lagu qoro oo dadka badankooda aanay isku wada raacsaneen qur-aanka dhakhaatiirta qaar ay qoraan oo aanay fahmin iyada ma ka howlgelaysa qoraalkaas horta waa qoraal adduunka dhan ka jira weeye waxaana akhriya dadka professionaalka ee caafimaadku qof kasta oo iskuulka ka soo baxay caafimaadka noocaas farmasi loo dhiibaa wuu awoodaa dhakhtarku farta uu qoro dawada lagu qoro uu garanayaa laakiin dadka ay dhibtaa waxa weeye waa dadka ka soo booda ardaaga een qualify u ahayn iminka sida kuwana la dagaalamayna oo kale ah oo dad maad aragtay aan laysan haysan ama iskuul diblomayar haysta oon aan dhakhaatiir ahayn ama farmacologist ahayn ayaa farta noocaas ku waraa laakiin dawada marka la qoro ereyga u horeeyo qofka qualify-gu garanayaa macnaha looga jeedo marka taas kolley de waa arrin caafimaadka oo laisla ogya waa far laisla yaqaano wey looyaradu waxay leeyihin waxay ku wada hadlaan dhakhaatiirtu far gaaray leeyihiin oo la isku fahmo marka taanu big deal uma arko laakiin waxaa dhibaataa qofkan loo soo qoray farmasiga jooga haddii uuna awoodin inuu akhriyo qofkaan waxaan aaminsanaha waa dadka aan u soconno eanu rabin meesha laga saaro qualify dadkaasi ma aha 3 cisho gudahood baad u qabateen inay liisamada ku qaataan ma waddanka oo dhanba mise waa magaalada hargeysa oo keliya taas su-aashaas waddanka hore way qusaysaa kaysku hargeysu ka dhacay laakiin somaliland oo dhan xarumaha caafimaadka inay laga hubiyo oo ay tagaan wasaaradda caafimaadka qaybta laysanka bixisa muddadaas 3 cisho gudahood in isku soo xaadiriyaan waa waddanka oo dhan waxaa nooga qorshaysan inaanu ka hawlgallo enforcement ku sameyno si uuna dib ugu dhicin aanu hubinno xarumaha caafimaadka meelaha farmasiga kliniga hasbitaalada inaanu tagno oonu hubina laysanka yagan haystaan ka NHBC-gana haystaan qolada aan labadaa midna haysanin ma operate karayn karto laamaha amniga ayaanu la kaashanaynaa albaabadana waanu ka xidhaynaa